Roberto Lewandowski ayaa lagu ganaaxay inuusan safan karin 3 kulan oo horyaalka La Liga ah oo ka bilaabanaysa kulanka ee Barcelona la ciyaari doonto kooxda Atletico Madrid toddobaadkan. 34 jirka weerarka ka ciyaara ayaa markii hore lagu dhuftay ganaax 3 kulan ah kadib casaankii uu qaatay kulankii ay Barca 2-1 kaga badisay Osasuna 8 November. Labadii kaar ee jaalaha ahaa qaybtii hore ee ciyaartii xiisaha badneed ee La Liga, xilli uu saaxiibkii Gerard Pique uu sidoo kale qaatay casaan isaga oo ciyaarta banaanka ka joogay oo aan ciyaarayn. ciyaarta ugu horeysa ee ganaaxaasi waxay ahayd inay noqoto kulankii adka ee Barca la yeelanaysa Isbaanyool habeenkii sanadka cusub. Si kastaba ha ahaatee, markii ay ku guuldareysteen racfaano isdaba joog ah intii lagu jiray fasaxii koobka adduunka, maxkamadda Madrid waxay sheegtay Jimcihii la soo dhaafay in ganaaxa weeraryahanka si ku meel gaar ah loo qaaday iyadoo la sugayo go'aanka ugu dambeeya. Isbaanyool ayaa kadib racfaan u gudbisay FA-ga Spain iyadoo cadeysay inaysan aaminsaneyn qaadista ganaaxa 3 kulan ee Lewandowski lagu ganaaxay. Joogitaanka Lewandowski ayaan wax farqi ah u sameyn kooxda Xavi Hernandez kuwaas oo si la yaab leh barbara 1-1 ah la galay Isbaanyool iyadoo uu goolkii uu dhaliyay Marcos Alonso rigoore uu dhaliyay Oselu loogu soo barbareeyay qaybtii labaad ee ciyaarta. Waxay ahayd ciyaar dhaawici karta rabitaanka Barca ee hanashada horyaalka. Maxkamadda maamulka isboortiga ee Spain ayaa go'aamisay Arbacadii in ay taageerto ganaaxa Lewandowski 3 kulan ee La Liga, taasoo la micno ah in racfaanka Barca ee ganaaxa uu fashilmay. Si kastaba ha ahaatee, kooxda ayaa laga yaabaa inay kala kulanto ciqaab ciyaaristii Lewandowski kulankii Isbaanyool, inkastoo ay mas'uuliyiintu ku wargeliyeen in ganaaxa uu hakad ku jiro. Isbaanyool ayaa sheegtay in ay ku wargeliyeen labada FA-ga Spain iyo garsoore Mateo Lahoz ka hor kulankii Sabtida in Lewandowski aan lagu soo darin shaxda Barca, waxayna hadda racfaan ka qaateen ka qaybgalka ciyaarta. Haddii cabashadooda la aqbalo, Barcelona waxay halis ugu jirtaa inay lumiso 1 dhibic oo ay ka qaadato ciyaarta, taasoo ka dhigaysa in Real Madrid ee hoggaanka La Liga qabanayso. Lewandowski ayaa haatan seegi doona 3 kulan ee soo socda ee La Liga laga bilaabo isbuucan kulanka ay la ciyaari doonaan kooxda kaalinta saddexaad ee Atletico ka hor inta uusan seegin kulamada Getafe iyo Girona. Ciyaaryahanka reer Poland ayaa dhaliyay 13 gool 13 kulan ee ugu horeeyay La Liga iyadoo oo maqnaanshihiisu ay u badan tahay in dhirbaaxo weyn ku tahay kooxda Xavi.